ciidamada booliiska ee maamulka Kitui ayaa xabsiga dhigay 3 askari oo ka tirsan ciidamada booliiska ee maamulka countiga Wajir kadib markii ciidamada booliisku ay sheegeen in ay joojiyeen gaari ay ku safrayeen saraakiishaasi ka tirsan ciidamada booliiska ee countiga Wajir kadib joojinta gaarigaas ay ciidamada booliiska ku joojiyeen deegaanka Kanyonyo gudaha gaariga baaritaan lagu sameeyay ayaa ciidamada booliiska ee countiga Kitui waxa uu suurtagalay in gudaha gaariga ay ka helaan 245 kilo xashiisha sidoo kalena waxay sheegeen laamaha ammaanka halkaas ay ka heleen adduun gaari 239,500 lacagta dalkani Kenya 300 kilo bariisa 100 kilo digir iyo waliba caana ay sheegeen inay kontrabaan ahaayeen cunadaasi gudaha gaariga laga helay ayaa waxa ku xardhanaa in aan la iibin karin ayna tahay cunno deeq bixiyaashu ay bixiyeen dawladda dalkani Kenya loo soo marsiiyay shacabka abaareysan ee countiga Wajirna ahayd in gacanta loo geliyo balse gudaha gaarigaas ayaa waxa lagu helayay cunadaasi oo dhaxtaalo sidoo kalena caanahaas ayaa waxa la aaminsan yahay inay ahaayeen caana dalka Soomaaliya ka soo galay magaalada Wajir ciidamada booliiskuna ay gacanta ku hayeen haatan ay ka sii qanimaysanayaan saraakiisha ciidamada booliiska ka tirsan laanteeda waliba sirdoonka dalkani Kenya ayaa waxa lagu kala magacaabayay sida barta rasmiga laanta CID-da dalkani Kenya ay ku soo daabacday Chafet Fondo Bob Otieno Michael Mwangi waxayna sheegeen dhamaantood ay saldhigga deegaanka Kanyonyo xalayta ay ku bariyeen Maxamed Farax Shire VOA Garissa.